بسم الله الرحمن الرحيم قلب wanaagsan waxaa maanta inoo qabsoomay shirkani caadiga ahaa isbuuclaha arimaha amniga oo maanta daadihinayay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka mudane Maxamed Xuseen Roble ay ka soo qayb galeen dhammaan hay'adaha amniga iyo taliyaashooda xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha wuxuuna warbixin ka dhageystay meesha ay marayso dib u habeynta ciidamada qalabka sida ay u dhan yihiin iyo horumarka laga soo gaaray wasaaraha wuxuu tifaftir balaaran ka dhageystay amniga caasimadda iyo howlgallada ka socda gobolada shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe oo ah albaabka laga soo gali lahaa magaalada caasimadda wasaaraha wuxuu ballan qaaday in uu sii wadi doono si dhowna ugu warqabi doono arrimaha dardargelinta tayeenta ciidamada qalabka sida kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed iyo booliiskaba si loo hubiyo amniga wadanka iyo amniga caasimadda wuxuu kaloo si fiican ugu dhiirigeliyay in shaqadii la soo qabtay muddadii xukuumadda madaxweynaha uu ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in shaqadii la soo qabtay aysan marnaba u hakan karin waqtigan hadda lagu jiro oo wada guurka ah oo doorashada la gali doono ra'iisul wasaarahana uu si dhow kula socon doono arrimaha dardargelinta ciidamada qalabka sida